بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. لما أنا مدة المسلمين تا ملك الدنيا كتشوغان قارهان مدة الصوماليات. إن برنامج كانوا حقان ما أنت وقلت لك علي برنامج أنا قوم قاعد دري براروك. إن رنتي براروك هو برنامج أنا قلت لك علي كأورور أهان إن أنا كبراروك نبل شوين تبيلها قبوية. إن رنتي waxaan rabaa maanta arrimo aad iyo aad u xasaasiya inaan ka hadlo oo ku saabsan beeshaasi aan ka dhashay runtii waxaynu aad iyo aad u wada ogsoontihiin bulshooyinka beelaha gabooya ama bulshooyinka Soomaaliyeed inay yihiin bulsho Ilaahay ku abuuray deegaan kaliya in dal kaliya dad kaliya Ilaahay ka wada dhigay haddana waxaynu ku kala gudisanahay in xagga horumarka wax qabadka iyo waxaad wada qaybsiga haddaba waxa isweydiin mudan oo in badan u baahan in laga hadlo oo hadalkeeduna uu u baahan yahay inuu noqdo mid facaayil wata bulshooyinka beelaha gabooya hadaynu nahay bulshada Soomaaliyeed dib u dhaceena role intee leeg bay ku leeyihiin horumarkeena role intee leeg bay ku leeyihiin inaguse role intee leeg baynu ku leenahay dib u dhaceena role intee leeg baynu ku leenahay horumarkeena haddaan labada qodob run ahaantii si toos ah aan u guda galo bulshada Soomaaliyeed waxay role wanaagsan ka ciyaareen dhinaca dhaqan iyo dib u dhaca nolosheena bulshada dhexgalka runtii aad iyo aad bay role wanaagsan ka qaateen oo ay halkaas inaga dileen haddaba waxaynu u baahannahay qarniyadii hore wixii jiray maanta waa gaababsi runtii lama wada oran karo Soomaali maanta way ka wada dhamaatay cunsuriyadii ama wali cunsuriyadii waa ku sii fidaysa cunsuriyadii way jirtaa wax way jiraan laakiin waxaad moodaa in waxoogaa oo gaababsi yara jiro runtii halka horumarkana haddii aan eego bulshooyinka Soomaaliyeed waxay aad iyo aad ugu heelan yihiin maanta oo ay aad u damaqday especially intii burburkii dawladda Soomaaliya ka dambeysay waxa ay aad u damaqday cunsuriyadii ay kala kulmeen qurbaha taasoo ay xasuusisay dhibaatooyinkii ay walaalahood ku hayeen markii ay joogeen Soomaaliya sidaa daraadeed ay wax ka barteen in ay dhibaatadaas tahay dhibaato aan xaq ahayn runtiina maanta ay dadaal dheer bulshada qaarkood ugu wada jiraan sidii dhaqanka foosha xun uu si baabi'i lahaa haddaba waxaan doonayaa inaan si toos ah u guda galo bulshooyinka beelaha gabooye especially waxa aan aad iyo aad anagu specifically aan u taabanaya beelaha Madhibaan iyo beelaha Musidariyo iyo beelaha Tumaalo inta marka aan saa u guda galo intaba waxaanu nahay abti iyo habaryar iyo seedaan isu nahay oo nikaax bana walaaliyay haddaba waxa aynu nahay qoomiyad ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa qurba jooga beelaha gabooye ee ku dhaqan qurbaha ee aqoonyahan leh ee dumar leh ee dhalinyaro leh ee rag leh maxay ka bedeleen oo ay ku soo kordhiyeen dalkii Soomaaliya ama deegaanadii ay ka yimaadeen waxaan aaminsanahay maanta deegaan iyo dal ay ka yimaadeen ay wax ku soo kordhiyaan iska daaya in ay horumarkii noloshooda ay ku gabeen qurbaha oo aad moodo inay taasi aad u liidato oo ay iska daa waxa ay qabsadaan qurbihii opportunity uu leeyahay waa laba waa dhaqaale iyo cilmi labadii midna ma hayaan runtii aad ayaan uga xumahay arrintaasina waa arrin aad ii damaqday markaan intaad leeyahay waxaan sameeyay runtii assessment baan aad u sameeyay aniga oo walibana interview la yeeshay at least
Canada the last 20 years ama the last 15 years ki u dambeeyay 15 years ki ama 20 years ki u dambeeyay joogay. Canada sidaas leeg and Australia sidaas leeg and Europe dalalkeeda inteeda badan sidaas leeg. And waxaad moodaa qurbaha dhibaatadii Soomaaliya ku haysay gabaadkii ay kaga jireen iyo gabashadii ay gabanayeen still inay qurbaha ku haysato oo ay gabanayaan oo aanay aaminsaneyn inay iyagu yihiin kuwa wax bedeli kara noloshooda cilmi la'aanta ka bedeli kara dhaqaale la'aanta ka bedeli kara. haddaba maxaa inaga inoo diiday inaynu noqono kuwa noloshoodii qurbe iyo noloshoodii guud ahaaneedba wax ka bedela? waxaynu wada ognahay jaaliyad kasta oo qurbaha ku nool oo Soomaaliyeed inta ay community cooperative samaysteen in ay iyagu noqdeen bulsho dhisan oo deegaanka ay ku dhisay ay degan yihiin, hadday tahay qurbaha Mareykan, Canada, Europe, inay yihiin bulsho isku xidhan oo degan oo dhisan oo iyagu organize garaysan oo administration system wax loo yaqaan leh. taasina ay keentay in ay organization samaystaan, inay dadkooda educatorski ay sameeyaan horumar dhinaca bulshada ah oo ay hogaamiyaan oo isku dabirsadaan dadkoodii. haddaba bulshaweynta beelaha Gabooye taasi way hoos martay, mana jirto. waxaad moodaa in aanay aaminsanayn inay iyagu noqon karaan dad iyagu dhisan oo dhaqaale urursan kara, wax samaysan kara, aqoon keensan kara, dalkoodii dadkooda jooga deegaanadii ay ka yimaadeen iyo dadkiiba wax ku kordhin kara. waxaynu wada ognahay community kasta waxa ay samaystaan waxay contribution bay samaystaan. 100 kron for example in Sweden 100 kron ayay bishii meel lagu ridaa ama 50 kron meel bishii ay ku ridaan community-yada qaarkood. the next year ama next year waxa ay sameeyaan oo ay capability u yeeshaan in ay wadooyinka xaafadihii ay ka yimaadeen inay ka dhisaan wadooyin. waxay capability u yeeshaan inay MCHO ama medical center ay ka sameeyaan deegaamadii ay ka yimaadeen. waxay capability u yeeshaan in ay garoomo u dhisaan ciyaalkoodii dalka joogay. haddaba bulshada Gabooye meel kastoo doonaan ha ka yimaadaan, Muqdisho ha ka yimaadaan, Boosaaso ha ka yimaadaan, Garowe ha ka yimaadaan, Lascaanood ha ka yimaadaan, Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ha ka yimaadaan, Boorama ha ka yimaadaan, maxay ku kordhiyeen deegaamadii ka yimaadeen? taas ay isweydiin mudan. That's very important question. waynu wada ognahay anu waxaan ka mid ahay shakhsiyaadka minority right activitieska ah ee ka soo jeeda bulshaweynta beelaha Madhibaan. runtii waxaan ogahay Gabooye iska daaya in Madhibaan dhexdiisii aanu ahayn dad union ama unit ah oo baaba oo zero qurbaha ku yihiin oo aanay lahayn community dhisan oo aanay lahayn ummad dhisan. Gabooyena hadalkiisa iska badaa kale. taasi waa ta keentay dib u dhaca nolosha bulshada beelaha Gabooye inay kow ka noqoto. haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa farifool kaliya ma dhacdo. Kamaal muxuu qaban karaa, muxuu samayn karaa waa su'aal. I am single, I am alone. kaliba nahay qof single ah gooni meel taagan. Okay, waxaydaan idinku qabsan karin anigu ma qaban karo. haddaanan idinku aydaan garab siin anigu wax ma qaban karo. laakiin waxaad ogaataan haddaad idinka aan garab idinka helno oo aan inagu iskarabsano inaan wax qabsan karno. wallahi wadaan dhisi karnaa, wallahi waxaan samayn karnaa MCH, wallahi baabuur iyo ambalaas inuu iibin karnaa. beelaha Gabooyo waxa aadan moodeen inaad tiraahdaan dawladda Soomaaliya waxba nama siiso, dawladda Soomaaliland waxba nama siiso. war ma calaa cali iyo tawaawuc bayna meel fadhinaa. war horta aynu ka soo baxno roolka aynu bulshadeena gudaheeda ku leenahay. taasaynu gabnay iska badaadadaynu wax la qaybsanay. what the hell is that? marka waxaan idin leeyahay walaalayaal, war aynu baraarugno dad wax qabsan kara ayaynu nahay, dad wax dhisan kara ayaynu nahay, dad la dhisi karo ayaynu nahay. walaal war dad baynu dhisaynaa. marka hore dad hala dhiso, dad marka la dhisaa dalka la dhisaa. laakiin haddii aad dad ahaan u burbursan tahay dal ma dhisi kartid.